waxaa loo yaqaanaa transitional military council iyo xoogaga isbeddelka iyo xorriyadda ama waxaa la yidhaahdaa quwat التغيير والحرية السودان heshiiskay gaareen oo aada loogu baahnaa ayaanu taageeray adduunkana u sheegnay maanta war-saxaafadan aan ku baahinay ama ku baahinaynaa waxaanu u sheegnay in ay suudaan u baahan tahay taageero inay joogto meel muftaraq ariiq ama crossroads meeshii suudaan ama ay hana qaadi lahayd oo ay ka soo kaban lahayd dhibaatooyinkii siyaasadeed iyo kala qaybsanaantoodii oo suudaan oo dal weyn muhiim ah baaxad ahaanna weyn juqraafi ahaan dalalka afrika ugu waaweyn intaysan kala go-in suudaan iyo south sudan waxaa dalka afrika ugu weyn haddana waa dalka labaad xagga baaxadda waa dal xuduud la leh 7 dal oo kaleeto iyo badda cas waa dal qowmiyado badan ay degaan waa dal dalalkii ugu horreeyay xorriyadda qaatay afrika taariikhna kale afrika soomaaliyana oo ahaa hiil ardada ugu badan oo dibadda soomaaliya wax ka barataa suudaan bay wax ka bartaa marka suudaan wuxuu noo leeyahay muhiimad gaara aniga muhiimad gaaru ii leeyahay oo 10 sanaan ka soo shaqeeyey arrimaha suudaan aad baan uga dheregsanahay marka aad baan ugu faraxsannahay suudaan oo heshiisay oo hana qaaday inaan aragno intaas waa u sheegnay beesha caalamka waxaanuna ku dhiirinay in la garab istaago oo aan caqabado loo abuurin oo cunaqabatayntii lagu hayn jiray iyo dhibtii beesha caalamka ay ku hayn jirtay laga qaado laga daayo suudaan hadda oo dadkoodii ay heshiiyeen oo mustaqbal ifaya ay leeyihiin taas markaanu u sheegnay waxaan kaloo kala hadalnay 2 arrimood labada arrimood waxay ahayd xiriirka aan u goynay dalka jamhuuriyadda Guinea sababtaan ugu goynay iyo sida aan jecelahay beesha caalamku inay hadda ka bacdi arrimaha Soomaaliya ula dhaqanto waxaan kaloo uga warramay ra'iisul wasaaraha kulankiisii socdaalkiisa iyo kulamadiisii gobolka ama dowlad goboleedka galmudug iyo guulaha laga soo hoyey labada arrimood ayaan maanta kulankayo ku saabsanaa